Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal. Waxaan ka hadli doonnaa taariikhda madaxweynaha dalka Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga magaciisa oo buuxa waa Recep Tayyip Erdogan. Waxa uu dhashay 26 Febraayo sanadii 1954. Waxa uu ku dhashay Kasambasha, bartamaha degmada Beyoğlu ee caasimadda Istanbul. Asal ahaan qoyska uu ka dhashayna waxay ka soo jeedaan magaalada madaxda Riis ee ku taal qaybta waqooyi bari ee gobolka Black Sea. Dhaqaale ahaanna qoysku uu ka soo jeeday waxay ahaayeen kuwo liita xagga jeebka. Erdoganna wuxuu magaalada ku wareejin jiray liin dhanaanta iyo sisinta si uu qoyskiisa ugu caawiyo xagga biilka. Sidoo kale waxa uu isla xilligaas ahaa arday dhigta Imam Hatib School, kadib waxa uu ku biiray jaamacadda Marmara University qaybta maamulka iyo cilmiga dhaqaalaha. Waxaana isla marhaanta ahaa xirfadle kubadda cagta ah ee u ciyaara kooxda Kasambasha. Haddaba halkee Erdogan ka bilaabay halgankiisii dheeraa ee siyaasadda? Sema asaga ayaa doontay siyaasadda mise way soo doonatay? Asaga ayaa doontay siyaasadda. Waxa uuna ku biiray urur la oran jiray National Turkish Student Union oo ah urur qarameedka ardayda muwaadiniinta Turkiga. Ururkaasoo ahaa urur ka shaqeeya ka hortagga ficilada Shiicada. Waxaana sanadka markuu ahaa 1976 noqday madaxa qaybta dhalinyarada maxalliga ee badbaadinta Islaamiga ee loo garan ogaa National Salvation Party ama NSP ee uu hoggaanka u hayay ra'iisul wasaarihii 23aad ee Turkiga Professor Dr. Necmettin Erbakan, kaas oo aas-aasi doona xisbi ee uu Erdogan qayb ka noqon doono kadib afgembigii 1980 ee dhaqdhaqaaqii Erbakan ee xisbigiisa Welfare Party. Erdogan waxa uu si tartiib ah u noqday xidig ka tirsan xisbigan, waana uu soo sharxay. Waxa uu noqday musharax u tartama qayb ka mid ah kuraasta baarlamaanka, waana uu ku guuleystay guushiisii. Kadibna waxaa laga ilaalinayay inuu ka mid noqdo guddiga farsamada baarlamaanka. 1994kiina Erdogan waxaa loo doortay duqa magaalada Istanbul, balse shacabka Istanbul ayaa muujinayay cabsi ballaaran ee ku aadan guddoomiyahooda cusub, maadaama uu ahaa nin diinta ku adag. Waxa ayna filayeen in uu mamnuuci doono waxyaabo badan oo ay ka mid tahay alkoolada, taa beddelkeedana soo rogi doono shareecada Islaamka. Balse xaqiiqda dhabta ah ayaa ahayd in Erdogan ahaa hogaamiye u soo baxay 4 sano soo socota mid ku xallin doona dhammaan dhibaatooyinka ka jiray magaalada Istanbul. Waxaana dhibaatooyinkaasi jiray ee uu xalliyay ka mid ahaa wasaqowga, biyo yaraanta iyo cilladda xagga taraafikada. Ugu dambeyntiina waa uu xalliyay. Waxa uuna bilicda Istanbul ka dhigay mid soo jiidasho leh oo ay jecleysteen muwaadiniinta ku nool iyo kuwa u soo dalxiisaga. Intaas waxaa ku hakin doonaa qaybta koowaad ee taariikhda madaxweynaha dalka Turkiga. Haddii aad ka heshay daawashada muuqaalkan, subscribe dheh si aad ula socoto qaybaha kale. Mahadsanid.